Ma ogtahay in fikrad siyaasadeed dhalatay qarnigii 19aad ay bedeshay taariikhda Bariga Dhexe isla markaana saameynteedu weli ay muuqato maanta? Laakiin su'aasha ugu weyn ayaa ah sidee ay fikradda ah in Yahuudu ay yeeshaan dal u gaar ah ay ku dhalatay? Si aan jawaabta u helno, waa inaan dib ugu noqonaa qarniyo badan oo taariikh ah. Waa inaan eegnaa noloshii Yahuuda ee Yurub, dhibaatooyinkii ay la kulmeen, iyo dhacdooyinkii ugu dambeyn horseeday dhalashadii dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay Sahyuuniyadda. Tani maahan oo keliya sheeko ku saabsan siyaasad, balse waa sheeko ku saabsan qowmiyad ku nooleed qurbaha muddo qarniyo ah oo mararka qaar la kulma guulooyin dhaqaale, marar kaleetana wajaha cadaadis iyo takoor joogto ah. Waa xalqadeennii labaad ee ku saabsaneed taariikhda Yahuuda. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. Markii la gaaray qarniyadii dhexe, Yahuudu waxay ku noolaayeen qaybo badan oo Yurub ka mid ah, waxayna degganaayeen magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka, iyagoo qayb ka ahaa bulshooyinkii halkaas degganaa. Si kastaba ha ahaatee, noloshoodu mar walba ma ahayn mid sahlan. Bulshooyin badan ayaa Yahuuda u arkayay kooxo ka duwan dadka intiisa kale. Diintooda, dhaqankooda, iyo afafkooda gaarka ah ayaa ka dhigayay kuwo si cad uga muuqda bulshooyinkii ay la noolaayeen. Iyadoo ay jireen caqabadooyin badan, haddana Yahuudu waxay caan ku noqdeen xirfado iyo ganacsi kala duwan. Qaar badan waxay ka shaqayn jireen ganacsiga, maaliyadda, farsamada gacanta, iyo isku xirka suuqyada kala fog. Sababtoo ah wadamo badan ayaa xadiday lahaanshaha dhul ama gelitaanka qaar ka mid ah shaqooyinka. Yahuud badan waxay xoog ka saareen ganacsiga iyo adeegyada dhaqaalaha. Magaalooyin badan oo Yurub ah, Yahuudu waxay noqdeen ganacsato iyo maalqabeeno caan ah. Waxay lahaayeen shabakadooyin ganacsi oo gaarayo dalal kala duwan, taas oo siisay fursado dhaqaale oo gaar ah. Laakiin guushaasi marar badan waxay sidoo kale dhalisay maseer iyo tuhun. Dadka qaar waxay ku eedeyn jireen Yahuuda inay leeyihiin awood dhaqaale oo ka badan tan dadka kale, inkastoo xaqiiqadu ahayd in inta badan Yahuudu ay ahaayeen dad caadi ah oo la daalaa-dhacayay duruufta adag. Markii qarniyadu socdeen, bulshooyinka Yahuudu waxay dhiseen iskuulo, xarumo diimeed, iyo dhaqan adag oo ilaalinayo aqoonsigooda. Hase yeeshee, xasiloonidaasi ma sii waarin. Waxyar kadib, daruuro madow ayaa bilaabay inay ku soo ururaan noloshooda. Qarniyo badan, Yahuudu waxay la kulmeen noocyo kala duwan oo takoor iyo cadaadis ah. Dalal badan ayaa ku soo rogay xayiraado sharciyadeed, mararka qaarna looma ogolaan jirin inay yeeshaan dhul, galaan shaqooyin gaar ah, ama ay ku noolaadaan meelaha qaarkood. Xilliyo kale waxaa lagu qasbi jiray inay ku noolaadaan xaafado gaar ah oo ka go'doonsan bulshada inteeda kale. Mar kasta oo ay dhacaan dhibaatooyinka waaweyn sida cudurro faafa, burbur dhaqaale, ama qalalaase siyaasadeed, Yahuuda ayaa marar badan noqday koox lagu eedeeyay dhacdooyinkaasi. Natiijadu waxay noqotay weerarro, dilal, iyo burbur loo geystay bulshooyin badan oo Yahuud ah. Dalal kale ayaa si toos ah u musaafuriyay Yahuud badan. Qoysas badan ayaa lagu qasbay inay ka tagaan guryahoodii, hantidoodii, iyo noloshoodii ay qarniyo ku soo dhiseen. Qarnigii 19aad, iyadoo Yurub casriyeen ku socota, qaar badan waxay filayeen in takooridu ay yaraan doonto. Laakiin arrin cusub ayaa soo baxday. Nacaybka Yahuuda ayaa bilaabay inuu yeesho qaab siyaasadeed iyo qowmiyadeed, halkii uu keliya ka ahaan lahaa arrin diimeed. Fikradda ah in Yahuudu ay yihiin dad aan si buuxda ugu tiirsanayn bulshada ayaa ku faaftay meelo badan. Dad badan oo Yahuud ah ayaa markaasi bilaabay inay isweydiiyaan su'aal muhiim ah: haddii aan mar walba nahay dadka laga tirada badan yahay, yaa naga ilaalin doona cadaadiska soo noqnoqday? Su'aashaas ayaa noqotay bilowga fikrad cusub, fikrad bedeli doonta taariikhda. Dabayaaqadii qarnigii 19aad, Yurub waxaa ka socday isbeddello waaweyn. Qowmiyado kala duwan ayaa bilaabay inay dalbadaan dowladnimo. Talyaanigu wuxuu isku beddelay hal dal. Jarmalka wuxuu bilaabay inuu midoobo. Jawigan cusub wuxuu dadka qaar ku dhaliyay su'aal: haddii qowmiyad kasta ay xaq u leedahay dal u gaar ah, maxaa Yahuuda ka reebay dal inay yeeshaan? Qaar badan oo Yahuud ah waxay rumaysnaayeen in isku dayga ay ku dhex milmi lahaayeen bulshooyinka Yurub aanu si buuxda u shaqayn. Inkastoo ay waxbarasho heleen,
ganacsiyo yeesheen oo ay qaybo ka noqdeen bulshada, haddana nacaybkii iyo takoorkii ma dhammaanin. Halkaas ayay ka dhalatay fikradda Sahyuuniyadda. Sahyuuniyaddu waxay ahayd dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo ku baaqayay in Yahuuddu ay yeeshaan hoy qaran oo iyagu leeyihiin. Mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu caansanaa dhaqdhaqaaqan wuxuu ahaa Herzl. Herzl wuxuu aaminsanaa in dhibaatada Yahuuddu aan lagu xallin karin keliya sharciyo ama dib u habayn bulsho. Aragtidiisu waxay ahayd in xal waara uu noqon karo helitaanka dal ay Yahuuddu leeyihiin. Fikraddu si degdeg ah ayay ugu faaftay qaybo badan oo Yurub ah. Qaar badan ayaa taageeray, qaar kaleetana waa ay ka hor yimaadeen. Laakiin hal arrin ayaa caddaatay: dhaqdhaqaaqa cusub ayaa dhashay, mana jirin wax dib u celin kara. Markii Sahyuuniyaddu xoogaysatay, taageerayaashu waxay soo bandhigeen dhowr sababood oo ay u arkeen inay muhiim tahay in Yahuuddu ay yeeshaan dal u gaar ah. Sababta ugu weyn waxay ahayd amniga. Taariikhda dheer ee cadaadiska iyo musaafuriinta ayaa ku qancisay dad badan inay nolosha Yahuuddu aanay weligeed ammaan noqon doonin haddii ay ku tiirsanaadaan dowladaha kale. Sababta labaad waxay ahayd aqoonsi qaran. Sida qowmiyadaha kale ee Yurub u leeyihiin dalal iyo calamo u gaar ah, taageerayaasha Sahyuuniyaddu waxay aaminsanaayeen in Yahuuddu ay xaq u leeyihiin inay yeeshaan dowlad matasha. Sababta saddexaad waxay ahayd xiriirka taariikhiga ah ee ay la lahaayeen dhulka Falastiin. Qoraallo diimeed iyo xusuuso taariikhi ah ayaa muddo qarniyo ah ku xirayay Yahuudda dhulkaas. Taageerayaashu waxay ku doodayeen in Falastiin ay tahay goobta ugu habboon ee laga dhisi karo hoyga qaranka. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan Yahuuddu ma wada taageersaneen fikraddaasi. Qaar ayaa aaminsanaa in xalalka lagu heli karo gudaha waddamada ay ku noolaayeen. Qaar kale waxay ka walaacsanaayeen caqabadaha siyaasadeed iyo bulshada ee ka dhalan karta hirgelinta qorshahaas. Doodu waxay ahayd mid adag, laakiin sannadihii xigay dhacdooyinkii dunida waxay sii xoojiyeen taageerada dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda, waxayna taariikhdu bilaabaysay inay gasho marxalad cusub. Marka aynu dib u eegno sheekadan, waxaynu aragnaa silsiladda dhacdooyin isku xiran. Waxay ka bilaabatay bulsho Yahuud ah oo qarniyo badan ku nooleed Yurub. Waxay sii martay xilliyo ganacsi, horumar iyo nolol degan. Kadibna waxaa xigay takoor, masaafurin iyo cadaadis soo noqnoqday. Dhibaatooyinkaas ayaa dhalay su'aalo waaweyn oo ku saabsanaa mustaqbalka Yahuudda. Su'aashaas ayaa ugu dambeyn horseeday dhalashadii dhaqdhaqaaqa Sahyuuniyadda. Fikraddii ahayd in la helo dhul Yahuuddu leeyihiin. Laakiin markii fikraddu ay dhalatay, sheekadu halkaas kuma dhammaan. Tallaabada xigta waxay ahayd sidii fikraddaas looga dhigi lahaa mid xaqiiqo ah. Sidee ayay kumanaan Yahuud ah u bilaabeen socdaalka dhanka Falastiin? Maxay ahayd caqabadihii ay la kulmeen? Sidee ugu dambeyn ku dhalatay dowladda Israa'iil? Qaybta xigta ee taxanaheena waxaynu ku eegi doonnaa socdaalkii Yahuudda ee Falastiin iyo aasaaskii Israa'iil. Ha moogaan daawade, mahadsanidin.